qaar ka tirsan maxaabiistii ay ciidamada Somaliland ka soo qabteen dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanada Sool joogta iyo gacan daro oo ka tirsan deegaanada Buuhoodle iyo Laascaanood ayaa goordambe oo habeennimadii xalay la soo gaarsiiyay xabsiga dhexe ee magaalada Burco waxaana tiradani maxaabiista ee xalay soo gaaray magaalada Burco ay dhamaayeen 740 maxbuus iyadoo horena ay cisbitaalka magaalada Burco ugu sugnaayeen 7 maxbuus oo iyagu dhaawaca dhinaca kalena waxaa labadii maalmood ugu dambeeyay la soo gaarsiinayay cisbitaalka guud ee magaalada Burco dhaawacyada tiro gaaraya 15 ka tirsan ciidamada qaranka Somaliland oo ku soo dhaawacmay dagaaladaasi ka dhacay jiidaha kala gedisan ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qaranka ee Gabriel iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada qaranka Somaliland oo xalay ugu waramayay warbaahinta kala gedisan xabsiga magaalada Burco xilligii la keenay maxaabiistani ayaa ka warbixiyay tirada maxaabiista iyo aagagii laga soo qabtay maxaabiista horta waa sida uu saaxiibkay u sheegay weeyaan waa dhammaantoodna niman waxa weeyaan hubkoogii lagu qabtay hubkii lagu qabtay baa hayna oo ku dagaalamayay marka laga reebo in yar oo garanin qoryamaan sidan tiro gurmudun iska ahayd laakiin inta badan niman hubaysan oo ciidan ah bay hayno dagaalka ku jiray bay hayno laguna soo qabtay jiidaha ilaa Sool joogto ilaa mataqaanaa gambareynta u dhaxaysa oo aaga Laascaanood baa lagu soo qabtay deedna nimanka anagu statementkii taliyaha aaga bari aw ka qoray maanta anaga goobjoogka in kana soo qaadnay ciidanka oo soo qaadnay ilaa jeelka soo gaarsiinay marka nimanka waxa mas'uulka u sareeyay waxa ninka banduulaha ciidanka qaranka ahaan jiray Farax Nadiif waa anoo ah taliyaha qaybta ciidanka asluubta waxaan kala wareegay ciidankii ka yimi maxaan ku dhahdaa og ee uu soo diray taliyaha aagu maxaabiistii uu soo dhiibay ee ahayd maxaabiistii lagu qabtay dagaalka shalay oo ahayd bish 31 kowdii bisha afraad maxaabiistaasi waxa weeyaan 740 maxbuus oo nin sarkaali ku jiro cid kale oo madax oo nimanka la socotana looma sheegin ciidankii waday looma sheegin 740 ka maxbuus oo sidoodii lagu soo qabtay oo u fayow oo aan waxba gaarin waanu haynaa sarkaalkaas dhaawacay dhabarka ka jaban ayuunbaa wax ka qabay oo ay sheegeen saraakiishii waday ciidankaas maxaabiista markaa waanu kala wareegnay 740 ka maxbuus oo la keenay xabsiga gobolka Togdheer ee Burco ku wareejinay jeelka maxaabiis laga soo qabqabtay dagaalkii silay ka dhacay siida Buuhoodle Laascaanood waxaanu ku wareejinay taliyaha qaybta ciidanka biliiska asluubta Somaliland gobolka Togdheer tiradiisu ciidanka waa 640 askari iyo taliyahoodii watay oo dhaawaca dhabarka ka jaban ambalaasta saaran oo isagu soo deey karay ugu dambeyntiina waxaa labadii maalmood ugu dambeeyay deegaanada goobihii ay dhawaan ku dagaalameen labada dhinac ilaa haatanna ma jirto wax waan nabadeed oo deegaankaasi ka muuqata marka laga reebo baaqyada nabadeed ee ka soo yeedhaya cid kasta oo jecel in la baajiyo dhiigga muslimka ee daadanaya maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News